ثانيا والفرار من المحكمة هيك لقتل الأبرياء من الصبيان والنساء مدينة قسح. إذن السؤال إذن ما أجبره نتنياهو بهذه السفاهة؟ أتكلم باللسان ولسان أبناء الصومال ونقول بالصوت العالي سنرفض كل الارتفاض ونسوأ كل الأسوأ من أي تدخل من قبل الصهيونية وللشؤون داخل أمورنا واستقلالنا ووحدة شعبنا وحدود أراضينا وكرامة أمتنا الصومالية. ونحن بأقصى الوجه المعارضة ضد الضرب الصهيونية والإضعاف والانقسام لقواتنا، ولا نتناسل بالدفاع حقوقنا الأساسية للوطن. إذن السؤال إذن ما أجبره نتنياهو بهذه السفاهة؟ أولا يختفي بفشله لقيادة شعبه الإسرائيلي. ثانيا والفرار من المحكمة هيك لقتل الأبرياء من الصبيان والنساء مدينة قسح. ثالثا أنه يختفى حسيمة التي أصالته جمهورية إيران من الدمار والانهيار لودنه. وضحوا أنه ليس أي عداوة بين الشعب الصومال والشعب الإسرائيلي. إذن فعلينا أن نكف يده شريرة معا، مثلا بفضولته وسوء حكمته بنفسه. لذا أحث شعب الإسرائيلي أن يشعروا بشعورهم بالمظاهرات حتى أنانته باستقالته كي يستريحوا من شره. أخيرا نشكر الدول الذين دعموا أمام أمن المجلس والولايات المتحدة كجامعة العرب وإيجاد وأمريكا وبريطانيا وروسيا والصينية وتركيا وباكستان، ونواعدهم أن تواصلوا جهدا بموافقة لقانون العالمي. نتنياهو ليس خضرا أمن الصومال وحده، بل يريد أن يمسك وضع القانون العالمية بالكلية والتغيير الحدود العالمية ويأخذ الشرع بيده ويجعل الدنيا بالفوضى. إذن فعلى العالم كله أن يكفوا أو بتعقيبه أو بمحاكمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو لكم بالخير والسعادة. hadda si aad la socotaaniin nimanka la yiraahdo yuhuuddu waxay dhex joogaan oo soo wajaheen Soomaaliya gobolo ka mid ah wax la yiraahdo jira tikraarul munkara oo wax xun qof hadduu sheego haddii aadna sidii ugu soo celisid adna xumaanta baa qayb ka tahay. marka wax itiraaf la yiraahdo ma aaminsani, waxaan aaminsanahay inay fidna tahay. marka sidaa darteed waxa itiraaf lagu sheegi karo. su-aasha meesha taalbaa waxay tahay sababta maxaa yuhuud inaga inoo keenay. yuhuudda waxa inaga inoo keenay waxa weeye laba qodob. qodob waxa weeye waa shaydaanihim, macnaha shaydaannimadooda baa inoo keentay. qodobka kalena waxa weeye inaga laftigeenna baa layn imtixaamaya. marka haddaan ku hormaro qaybta koowaad inaga waxa inoo keenay horta shaydaannimadooda markaan leenahay waxaa daliil u ah tusaale ahaan ibliis iyo ilaahay waa isdirireen. markay isdirireen waatuu yidhi qaala fabima aqwaytanii la aqcudanna lahum siraadaka almustaqiim. ibliis wuxuu arkay in aysan suurtagal ahayn inuu isagu cadaab galo dadka xawiya aadanna ay jannada isaga ugu jiraaniin. sidaa darteed wuxuu yidhi waa dhuminayaa, meel kastana u fadhiisanaya. ilaahayna wuxuu ku yidhi ciddii aad dhumin kadhid dhumi,
adiga iyo iyaguba naartay aadayaan. sidaa darteed wuxuu u yimi soo wajahay nebi aadam oo jannada ku jira iyo xawaa. ma uusan dhihin marka waa arrinta hadda taagan laftigeeda, ma uusan dhihin waxaan rabaa maadaama ilaahay soo dirnay adinkana waa in fidnaynaya. wuxuu fiiriyey meesha ay ka jilicsan yihiin. wuxuu yidhi waqaala maa nahaakumaa rabbukumaa can hadihi الshajara ilaa an takuuna malakayn aw takuuna min alkhaalidiin. halkaasuu ka maray meeshay ka jilicsan yihiin. waa hadda meesha somalilan laga soo maray. waxaa layna siinayaa ictiraaf, waxaad noqonaysaan boqortooyo, waxaad dadka kaaad ka sarraynaysaani. qodobkaas waa qodobka inoo keenay. qodobka labaad oo inoo keenay wuxuu yahay meeshan isbahaysi baa nimankan la socda. isbahaysigaas waxaa ka mid a america, waxaa ka mid a ingiriiska oo isaga laftigiisu muddo hore barnaamijkaas goonagoosadka aad u riixayay. waxaa ku jira nimanka la yihahdo etoobiya, waxaa ku jira maxaan ku yidhahdaa nimanka la yidhaahdo carabta. haddaan kala qaadno barnaamij la yidhaahdo waxaa la yidhahda abraha accord oo aad dabada looga wada baa jira. barnaamijkaas abraha waa qiso caana weeye oo niman halkan ka tegey, dhulka etoobiya ka tegey oo kabcada dumiyey dhalashadii nebiga sala allahu alayh wasalam waqtiyaashiisii. marka arrintaas macnaha etoobiya waxaa la rabaa soomaaliya inay qaadato baddaa bariga sharqi afriqiya oo yuhuudda iyo etoobiya, labadaa yuhuudood oo midna ti africa tahay midna tan bariga dhexa tahay in laisku xiro. barnaamijka mu aad horay loo fashiliyey. barnaamijkaas oo qaab kale loo soo dhigay oo hadda la rabo in lagu guulaysto oo awal bacdallah ka sokow iyo dowladda ummadda soomaaliyeed dadaalka gashay. waxaa dhinac socday nimanka la yidhaahdo turkiga. marka etoobiya adigu waynaliqi arrintaa waynaliqi weyday, baddeena waa la siin waayey. hadda qolo turkiga u dhiganta oo yuhuud la yidhaahdo oo dadsan kaba baaburweyneyn baa la soo jiiday. barnaamijkaas waad arki doontaan. barnaamijyada ku hoos qarsan buu ka mid yahay. america oo kale hadda inkastoo ay madaxa ka laabtay oo ka aamustay oo ay waqtigeeda la sugayso aan is leeyahay, waxaa ka mid ah sababaha bariga dhexe oo ciriir ku noqday oo dagaallo hanjabaad fara badan ay kaga yimaadeen nimanka la yidhaahdo maxaan ku yidhahdaa iran. waxaa ka mid a anigu hadda ilaa hadda dowladda aanan garanayn doorka ay halkan soo geliyey oo dowladda aan muslim isla sheegano oo jaamacadda carabta ku jidha oo imaaraadka la yidhaahdo. nimankaas waxa weeye macal sacuudigu barnaamijka abraha kood dagaal buu u arkay isaga laftigiisu oo dagaal buuba inay imaaraadka ku daba gabanayaan buu arkay. barnaamijka markuu maqlay dagaal toosuba ku qaaday yaman. dagaal baa hadda ka socda toos baa waxa weeye ugu diyaar garoobeen. halkaas xadiisna waa jira halkan niman ka tagaya oo kacbada dumin doona. barnaamijkaasaa dad badan oo islaam ay aaminsan yihiin inuu meesha ka socdo. horta waa qodobkaas, waa qodobada ka mid ah qodobada ay meesha ku yimaadeen. waxaa ka mid a maxaan ku yidhahdaa dee waxa ay magaranaysaa israa'iil ay ka rabto nimanka la yidhaahdo falastiin sida loo gumeeyey, sida waxay soomaaliya ka rabtaa sidaasoo kale soomaaliyana ka rabtaa. waxaana keenay istiraatiijiyad laba dowladood oo muslima inay yihiin. waxay iskaga mid yihiin istiraatiijiyadda middaa beri haddii istiraatiijiyad loo arkayey, maantana iyadana waxa weeye istiraatiijiyad baa loo arkay soomaaliya. waa sida ii muuqata. waxaa kaloo loo arkay inay la suurtagelin karso ummad kala yaacsan oo aan isla socan inay yihiin. mar raba inaan ku dheeraado. taasi waa taa. waxaa jiro waa taxaalufka waa ka hadalay iyagana. qodobka labaad oo inoo keenay waxa weeye imtixaanul umma islaamiya. ummaddu markay islaam tahay imtixaan baa la marinaya. falaa yaclamana aladiina sadaquu walaa yaclamana alkaadibiin. haddii la rabo qof inuu wax barto tusaale ahaan ilaahay wuxuu leeyahay waa in imtixaan la keenaa. imtixaankaasoo lagu kala harayo waxaa la ogaanayaa midka runta sheegaya oo diintiisa ka sheegaya iyo midka beenlowga si loo kala saaro. tusaalena waxaa kuu fiican hadda dadka waxbarta ardada waxbarata qofka shahaado markii la siinayo bilaa imtixaan haddii dugsi hoose la rabo inuu ka baxo waa in imtixaan uu ku mutaystaa shahaadadan. secondary
waa inuu imtixaan secondary waa in loo keenaa jaamacad mid jaamacad imtixaanaadku waa kala duwan yihiin qof walba iyo meesha uu marayo qof jaamacadeed yahay imtixaan jaamacadeed baa loo keenaya imtixaan dugsi hoose hadduu yahana imtixaan u qalmaa loo keenaya bini aadamkana waa saas oo kale qofka iimaankiisu meeshuu joogo imtixaan la mid ah baa la marinayaa marka imtixaankaas waxay waxyaalaha keenay bay ka mid tahay inaga laftigeena ayaa waxa weeye layn imtixaamaya wala nabluwanakum bishayin من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صابرين تبقوا قدوم مركا قولوا كاسنا waxa weeye qayb buu ka yahay already waxa moodaa hadda inaba imtixaankaas in dad badan hadda khatar ku jiraan waxaan arkay qolo ma garanaysaa youtubereeya oo ma garanaysaa ilaa wadan beerka beeline saasu yaacisay oo waxa weeye barnaamijyadoodii barnaamijyo aan ahayn wixii shari socday oo gruubyada in la isku caayo oo qabiil la isku caayo oo ma garanaysaa adeer meeshaan barnaamijkaas waa ka duwan yahay ma aha yuhuud baa waxaan kuwale yuhuud waa fiican tahay yuhuud waa xadaariyiin adduunka ay haystaan adeer mar kasta oo waxa weeye qof yuhuuda u dhawaatid ogow ilaahay baad ka fogaatay been baad sheegaysaa midaada kale yaa ku yiri yuhuud baa fiican intee nusuus ku soo aroodhay ay malcuunin yihiin ilaahay muxuu yiri yuhuudda iyo nasaaradu ka raali noqon mayaan ilaa diinta ka saaraan maxaan ku yiraahdaa tajribada lagu soo maray anbiyay laayeen nabi maxamed alayhi salaam bay dhibeen oo dhibaateeyeen oo intaasoo goor damceen inay ikhtiyaal ku dilaan oo ay ma garanaysaa khiyaano ku dilaaniin oo markii ugu dambeysay waxa weeye qoladii ugu dambeysay waxay noqotay in la laayo oo iyagoo xabad aan laga reebin wax hal wiilkii hal naaskeed gaara in la gowraco dumarkii ciyaalkana la adoonsado caaradka intii waxay ku tusaysaa xamaaqadooda iyo buqdigooda caaradka iyagoo waxa weeye laga laynayo intii ugu dambeysay waxa weeye waxay jajeen dharkoodii bay jajeen marka taasina waa midaas weeye arrintaasi waxa weeye marka waa uga digayaa dhalinyarada waxa weeye arrinta tan moodaysa reer hebel iyo hawiye daarood iyo qarannimada Soomaaliya iyo qofka diintiisa iyo imtixaanaadka maanta maraya adeer waxa weeye haddii aad waxba tarayn maaha midaada kale maba ahanba adiga qof yar oo youtuber oo waxaan aan waxba diin ka garanayn oo aqoonteed lahayn mashaakilkan kale inaad dhex gashid maaha waa in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha waxa weeye lafahaaga badbaaso hadaad waxba tarayn inaa waxba tarayn lafahaaga badbaaso hadaad qarannimo iyo ummadnimo midna lafahaaga walaalo badbaaso gacaliyo taasaan ku leeyahay qodobkaasna intaasaan uga baxayaa qodobka kale waxa weeye inaga inoo kane waxa weeye barnaamijkii la yiraahdo goonigoos qodobka waxa weeye kale oo saddexaad waxaan leeyahay goonigoosku hal Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hal xaaraani hinira xalaal ma dhasho waxay kaloo yiraahdaan wadada yari wada weyn bay kugu dadhaa maanta yuhuud waxayna dhex taagay waa systemka goonigosadkaas Soomaalidu wax lagu fidneeyay bay ka mid tahay waxa weeye mabaadida islaamkuna wax badan buu ka hadlay xadiis waxa jirta toos uga hadlaysa wa'tasimu bihablillahi ayad quraanaba wa'tasimu bihablillahi jamiican siyada ummad in la kala gooyo oo ummadda xuduudeeda lagu ciyaaro waa shay xaaraana weeye marka arrintaas goonigosadku khilaaf iyo halaag inoo horseeday miraheedii koowaad baynu hadda dhex taagannahay marka waa arrinta waxaan inoo keenay nimankaa waxa weeye waa barnaamijka goonigosadka iyo khilaafka barnaamijkaasna waa barnaamij khadiir ah dhibaato badan buu Soomaalida ku hayaa laakiin anigu waxyaalahan la yaabay waxa ka mid ah rag waaweyn oo aqalka sare ku jira oo aqalka hoose ku jira oo wasiiraa oo mid maamul goboleeda oo mid federaal ah oo kitaabka Ilaahay gacanta saaray oo u saaray inay ummadan badbaadiyaanin oo waxaad arkaysaa waxa weeye taageeriya goonigoos oo leeyahay waxaanu nahay xidid baanu nahay xoolaha suuqaya jira dimuqraadiyadooda oo waxa kan aw kitaabka ummadda aad waxa weeye aad u martay hadaad ummadda midnimadeedu ku ciyaaraysid arrintaas waxa weeye waxa lagu mahmaha waxay ahayd
ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa waxa weeye shacbiyadda iyada dawladda shacbiyaddu waxa la rabaa waxyaalaha masiiriga in ilaashataa la rabaa turkiga hadda dawladaha Soomaaliya ku daba gabanaysa kamid tahay hadda ka hor America reer galbeedku waxay dabceen inay burburiyaan in la afgambiyo shacabkii baa diiday waxay noqotay intii lala soo baxo qoriyihii mucaaradka ahaa oo dabada laga waday inay taangiyaasha la soo baxaaneen in shacbiyadii ay waxa weeye diido oo taangiyaal sa u wareegaysa sa isu hor dhigaanin iyaga laftigooda dad carbisan bay ahaayeen dadka ma aysan dhibaatin way ka istaageen markay arkeen caqabada hortaagan marka dad baa naftooda waxay u horeen inay ayagu dhintaan bay waxay ka doorteen in Turkiga la badbaadiyo ummadnimada in la badbaadiyo waa in naftaada ma garanaysaa aad wax weeye ummadda in la badbaadiyo waa inaad naftaada ku furataa weeye qodobkaasna hadda tusaale ahaan waxaan ka soo qaadayaa nin odaya oo reer waqooyi oo waxa la yiraahdo Cismaan Dubbe hadda markay duulaanka soo qaaday nimanka la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa yuhuuddu soo qaaday markay saa u soo qaadaba waa iscasilay macnaheedu wuxuu ku leeyahay intaasoo sano baan waxa weeye baan mushaar iyo haystay oo dawladda ka qaadanayay Hargeysa joogay intaasoo kale ciidaa ka badan oo 30 sano ku dhow Muqdisho fadhiyay hadda maalintii lagu baahnaa haddii aad waxa weeye qofku waa iscasili karaa macnaha inay dawladda saxanta wax badan baa lagu haystaa wax badan ku haysana laakiin maamaha waxay ahayd weedha iyo naasaadiga maxaa kulmiyay ka hor haddii aad iscasili lahayd waxaan u arki lahayn inaad masaalix wadid laakiin haddii aad adiga iyo cadowgii aad isla kulanteen inaad hiila siinaysid ayay u eg tahay marka qodobkaasna khatarteedu leeyahay ummadda Soomaaliyeedna waa inay midnimadeeda ilaashato waxyaalaha goonigosadka buunbuuninaya cayilinaya waxaa kamid ah waxaa arkaysaa dowladda xataa Soomaaliya waxaa arkaysaa wiil guumis fadhiya tusaale ahaan oo 2 sano 3 sano 4 sano aan mushaar helin oo tuutihii asaga isku dul qalaleen oo ka soo horjeedo nin yuhuudi dabada ka wado Soomaaliya raba inuu kala jarjaro oo midnimada ummadda ku cayaaro baa waxa weeye tii gobolkiisu u soo dhacaysa tii yuhuudi u soo dhacaysa tii federaalka loo sii deynaya tii dalka lagu kala jari lahaa Soomaaliya intay soo dhexmadho $1,000 $2,000 la siinaya kii midnimada u dagaalamayana indhaha laga laabanaya taasi waxay keenaysaa waxyaalaha keenaya inaynu yuhuud u gacan gallo oo burburno oo diinteenna iyo dhaqankeena iyo midnimadeeduna ay meesha ka baxaanin waxaan rabaa intaas inaan barnaamijkaas aan ku soo gaabiyo kelmadda ugu dambaysa waxa weeye aan talada aan siinaya waxay tahay intaas dhamaantood xumaaniga ma aha wax iga tahay nasiixa iga tahay iyo aan gudanayo waajib isaaran ay iga tahay marka ilaahay inuu ku wada anfaco anigana ajar iga siiyo wixii aan khaldana waa xag shaydaan ee ka ahaatay mid ugu dambayso marka aan ku soo gabagabeynay waxay tahay waradeero xaalad khatar ah lagu jira Soomaalidu waxay isku hayso waxay ku wada socdaan oo ka midaysan yihiin baa ka badan cid kasta oo waxa weeye markii wadanka dhibaato khatar oo sida hadda kale ay taagan tahay xiloo midooba mucaarad iyo mu'ayid iyo yaan reer la kala sheegan oo dhaqamada noocaas saaxadaha noocaan oo kala lala dhixroorin saf hal noqdo hal dadku diintooda iyo dhaqankooda iyo wada jirka wax lagu noqon karaa waxa weeye hadii doon bad saaran oo dabeele ku kaceen haddii mid ka mid ah tufaas la soo baxo dee yiraahdo anay ii taalaad halkaas badan dalooshanaya haddii laga qabto waa la badbaadaya isagana wuu badbaadaya dadka kalena way badbaadayaan xadiis bayna ahayd najow wanajow jamiica haddii gacanta haddii kalena halaku jamiica bay noqonaysaa marka midnimada in la ilaaliyo ayaan idinku boorinayaa waa qodob intaa kaga baxo qayb yar oo luqadda carabiga ku baxaysa maadaama dhibaatada taagan ay international tahay ayaan wax rabaa in halkan ka akhriyo marka la socod wanaagsan